waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiyadii kala duwanaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba lahaa iyo kuwii u dambeeyey ee heer baarlamaan lahaa ee doorashadii ugu dambeeyey madaxweynaha noo qabtay. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, ilaahayna abaal ha idinka siiyo wanaagga aad samayseen. intaa kadib Soomaaliya waxay ku soo jirtay waddo dheer oo way aragnimo kasbasho, waxbarasho, faham dowlad dhisidda, yacni dowlad maamulidda maaha, waa dowlad dhisid fahamkeedii ku soo jirtay. waxaan is leeyahay meesha caawa aan joognaa ilaahay ayaa mahadle, waxaan ku soo gaarnay naxariista rabbi, haddana kama maqnayn dadaalka dadka Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaa loo soo dadaalay, guddiyadu waa dadaaleen, maamuladu waa dadaaleen, golayaasha cusub ee samaysmay oo baarlamaankeena uu ka mid yahay. maalintii baarlamaan la helay khatartii horta waa inta badan waa naga soo dhammaatay. waxaa caawa aan rabaa iyaguna inaan cod dheer ku gaarsiiyo guddiyadii doorashada ee heer dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah